asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mar kale iyo aqoonkaal.com casharkan maanta waxaan ku baran doonaa sida wordpresska loogu sameeyo foomka xiriirka ama foomka shaqada. marar badan ayaa waxaa loo baahdaa in foom lagu sameeyo wordpress. markaad tusaale ahaan haddaa shirkad leedahay oo aad shaqo bixinaysid, markaa si dadka soo codsanaya shaqada ay u soo buuxiyaan foomka ama foomka caadiga oo xiriirka oo lagala soo xiriiri karo. haddaba waxaan adeegsanaynaa barnaamij loo yaqaano contact form 7. barnaamijkaas oo ah waa barnaamij kalkaaliye u ah ama lagu taaro oo lagu lamaaniyo wordpresska. kaas ayaan ku dhisi doonaa foomka. barnaamijkaas waa barnaamij lacag la'aan ah ama free ah, waxaana sameeyey contact form 7 ayaa laga helaa, toos looga helaa, laakiin sida loo soo rogto gadaal baan ka arki doonaa insha allah. haddaba barnaamijkaas contact form 7 waxaa lagu lingaxaa barnaamij loo yaqaano really simple capture, oo macnaheedu maxay tahay? waa barnaamij wuxuu samaynayaa xarfo kala duwan oo marka la buuxinayo foomka la qorayo xarfahaasi waxay ka hortagaan dadka iimailada ku asqaysiiya internetka ama tuugada ah oo iimailla aan loo baahnayn kuu soo diraya, kuwaasuu ka hortaga barnaamijkaas. marka tiradaasaa la qoraya tusaale ahaan, marka tirada meesha lagu qoro haddaan tirada la qorin wuxuu ku saaraya khalad wey foomkaagu. marka waa in qof bini aadana uu qoraa, waayo waxaa jira qaab oo kombyuutarka laga dhigayo inuu iimaillo foomka uu ka soo diro haddii aan marka lagu darin habkaasa loo yaqaano capture. marka kombyuutarkii baa iimailla diraya tirada ka badan, adiga marka waxuu iimailkaaga kusoo dhacaya malaayiin iimail baa hamar kusoo dhacaya, marka waa spam oo kaleeto. taasu ka hortagaa. marka waxaan isticmaalnaa marka contact form 7 iyo really simple capture oo lagu lamaaninayo, labadaas la isku darayaa wordpresska. marka lagu darayaa labadaas, markaas waxaan ka samayn doonaa foomka ku samayn doonaa. haddaba barnaamijkan la yidhaahdo contact form 7 wuxuu samayn karaa ama lagu samayn karaa foom caadiya oo sahlan sida kanoo kaleeta ah, oo sida foomka contact caadiga ah baa lagu samayn karaa, ama waxaa lagu samayn karaa foom oo aad u naqshadaysan, midabo kala duwan leh. waxaana arrintan marka midabadan samaynaya waa habka htmlka caadiga ah ayaa samaynaya, html iyo css-ka oo casharada hore oo aqoonkaala ku baratay. marka waa kana tusaale ahaan waxa weeyaan foomkii caadiga ah oo midab loo sameeyey oo contactiga ahaa, ama kii shaqada oo loo sameeyey midab loo sameeyey. waa maxay marka da shuruudaha loo baahan yahay? intaynaan bilaabin, shuruudaha loo baahan yahay waxay tahay, waxaa muhiima in emailka lagu qori doono contact formka ee loogu talagalay in foomka marka la soo dirayo ay qorallada ku soo dhacaan. marka waa emailkaaga qorallada kugu soo dhacayaan waa inay la mid noqoto emailka aan ku qori doono, emailka ku qoran dashboardka wordpresska. maanaa email ku qoran waa arki doonaa meesha ku qoran tahay, emailka dashboard ku qoran waa inuu waafaqdaa emailka lagu qorayo contact form 7ka. marka labadaas waa inay waafaqaan. tusaalahaan waa kana dashboardka markaa gashid wordpresska oo aad tagtid meesha ku qoran tahay setting, kadibna aad ka tagtid general, eeg waxa weeyaan waxa ku qoran emailkaas halkaa ku qoran xusuusnow waa inay tahay emailka websiteka waa inay tahay. marka websiteka hadduu ahaa aqoonkaal.com oo kaleeto, halka waa inay ku qornaataa webmaster oo kaleeto ama information@aqoonkaal.com. marka websiteka waa inuu ku qornaadaa bartaas suu u shaqeeyo foomku. waxaa lagu qori doonaa marka foomkiina waa kana. marka foomka waxa uu leeyahay meel, waxaan markaan soo download garin arki doonaa, wuxuu samaysanayaa linki caadi oo la yidhahdo contact. linkigaas marka la riixo qaybtay ku qoran tahay mail tu'deeda ama loo dirayo waa inay ku qornaataa emailkii aan soo aragnay. marka labada email waa inay iswaafaqaan, emailkan oo ku qoran dashboardka iyo emailkan ku qoran contact formka waa inay iswaafaqaan. labaduna waa inay waafaqaan websiteka. haddii websiteka waafaqsanayn mararka qaarkood inuusan dirmin baa laga yaaba emailku soo dirmin. oo tusaale ahaan websitekaaga hadduu magacii websiteka aysan emailku wadan, aysan dhici karin mararka qaarkood inuu soo diranto. haddii marka email uusan websitekaagu lahayn, waxaan video hore kusoo baranay sida gmailka loo adeegsado adoo websitekaaga u samaynaya email uga samaynaya. marka videoga hore daawo haddaa rabto inaad websitekaaga u samaysid, tusaale ahaan magacaaga @websitekaaga.com bartaan lagu qori doonaa. marka haddaba talaabada inoo xigtaa waxay tahay inaan soo rogano barnaamijkii contact 7 iyo barnaamijka leeto simple capture, labadaan soo rogano. saan u soo rogano marka waxaa gashaa dashboardka wordpresska gal, sida caadiga u gal, kadibna waxaa riixdaa meesha ku qoran tahay plugins, kaasoo kalkaaliyaashii ah ma garatay. marka waxaad tirahdaa markaad plugin riixdid waxaad riixdaa meesha ku qoran tahay add new ama ku dar plugin cusub ku dar baa leedahay moogta, ama kalkaaliyo cusub ku dar. bartaa riix meeshay ku qoran tahay marka term, bartaa waxaa ku qortaa marka contact 7.
contact 7 baa ku qoraysaa contact form 7 baa ku qoraysaa bartaas mugta kadibna waxaa leedahay bar ama search waxaad ka fiirinaysaa marka midka ku qoran tahay contact 7 contact form 7 oo uu sameeyey magacaasaa ku ku qornaadaa samar ahaantaana ay ku qoran tahay contact form 7 marka kaasaa soo roganayna waxaa leedahay eeg markaad daarto inaad detailkeeda inaad eegto macnaha inaad si hubisid detail baad fiirinaysaa waxaa balaaginka waxaa soo rogtay 5,700,000 oo qof aa soo rogtay ilaa hadda wixii ka horreeyey ma garatay marka waxaad tidhahdaa install marka now marka diyaar bay ku tahay waxaad tidhahdaa activate marlada intaad meesha ka tegin waxaad tidhahdaa mar kale ku dar add new kadibna waxaad ku qortaa really simple captcha intaa ku qor really simple captcha intaa marka ku qortid waxaad tidhahdaa search dheh marka waa tanaa marka magaci horaa samayso ma jeedid haddaa rabto detailka fiiri haddaa rabto in install toos u dheh detailkan fiirin inta qof soo rogtay midanna tan waxaa soo rogtay 648,000 oo qof aa soo rogtay tan marka waxaad tidhahdaa install kadibna waxaad tidhahdaa activate sidaas marka diyaarina ku yihiin labadiiba waa tanaa marka really simple captcha iyo contact form 7 labadiiba marka diyaar ba noo yihiin ma garatay marka saan u eegno ina waxaan eegsanayna marka contact form 7 waxaa la shaqeynayaa kanaa la shaqeynaya marka wuxuu ku samaysanayaa contact 7 wuxuu sameynayaa linki buu samaysanaya ku qoranta contact eeg dhinaca bidixda ee dashboardka linkiga riix waa kana diyaar buu ku yahay marka hadda formkii soo maartid marka qaabka u shaqeeyo cashirka dambe ayaan ku baran doonaa lakin waxaa muhiimada inaad eegtid sidoo inaan ku xiriirino websiteka ayaan ku xiriirinaynaa qaybta contact ayaan ku xiriirinaynaa formkan hadda samaysan marka waxaa meeshaan riixaysaa linkigan soo koobiyaaranaysaa copy ka soo qaado linkigan copy dheh right click copy kadibna waxaad tagtaa pages aboutka waxaa samaynaysaa marka page cusub baan samaynaa oo la yidhahdo contact marka page waxaa leedahay add new kadibna waxaa ku qorataa contact halkaa marka ku base garee macnaa qoraalkaa watay qaybta htmlkaas halin lagu base gareeyo right click kadibna waxaad tidhahdaa paste marka waxaad tidhahdaa publish eeg marka hadda maxaan samaynay waxaan nidhi pages baan soo riixnay kadibna waxaan nidhi add new kadibna waxaan ku qoran meeshaan contact kadibna waxa weye waxaan ku base garaynay linkigan wadanay oo ahaa formka waxba inago aan ka bedelin marka waxaa leedahay publish marka saa u booqanno meeshaan riix control inta adoo hayaba waxaa leedahay riix markaa si uu kugu furmo shaashad cusub websiteki booqo kadibna waxaa meeshaan ku qornaa contact halkana formka diyaar buu ku yahay maarata soo ma jeedid waxaa ku qoran wixii ku qornaa marka gudahan ku qornaa unbaa ku qornaanaya eeg marka lagu noqdo contact formka lagu laabto marka la bedelo your nameka hadday ku qoran tahay magacaaga haddii halkaa lagu bedelo oo la yidhaahdo safe eeg meeshaan safe aa tidhi kadibna aan ku noqono formkii aad tiraahdo refresh waxaa ku qormaya magacaaga saasa marka waxa weeyaan edit ugu samayn kartaa waxa rabtaa ku bedelan kartaa kadibna waxa weeyaan waxaana muhiimada laakiin xusuusnow waxaa muhiimada emailka alaha ku qorto bartan ku qoran inay tahay emailka waafaqsan xagee waafaqsan tahay dashboardka ka xagee setting kadibna general inay emailka waafaqsan tahay waana inaa hataa emailka websiteka hadda maxaa weeyeen ciwaanka websiteka waa inay lahaadaan labaduba ma garatay websitekii .com way mujida taas marka waa in lahaataa contactigana waa inaa hataa markaasaa marka email ku dirmi kartaa marka tusaale ahaan waxaa ku qornay magacaaga email baa ku qortay tijaabo marka wuxuu kusoo qorayaa dhambaale ku qoran tahay your message was sent successfully macnaha waa ku guulaysatay halkaa marka waxaa ku qormaya xataa waa la bedeli karaa waxa weeye waxaa ka bedelaysaa contactaa kusoo noqonaysaa meeshaan eeg masajyada oo dhan meeshaan ku qoran yihiin marka masajka hadda arkayna dhambaalka arkayna waa kana halkaas ku qornaa ma garatay waxaa ku qori kartaa waxaa rabtid oo kelmad soomaaliya ku bedeli kartaa oo la macnaa taas
halka ayaan waxaan ka arki doonaa marka qaabka loo naqshadeeyo oo qaybahan loo adeegsado ku baran doonaa si aan u samayno hadhow form noocan oo kale ah oo ah contact form noocan ah iyo form shaqo oo saan camal ah qaybta koowaad halka ayaan ku jirnaa maantay waa mar kale aqoonkaal.com waxaan idiin soo tebinayay maxamed cali la soco qaybta labaad insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq